soo laabanaya marka sidaad hadalkaada ku dartay meelahaas oo kale oo dawladdu ay joogto oo meelaha ugu muhiimsan oo la wardiyaa inay dadka qaarkood wali hub wataan miyaan laga joojin karin miyaan la dhihi karin aagani waa aag ka mamnuuca qoryaha la qaato xaqiiqadii aan qirana ceebteena taas weeye sidee ammaanka loo sugi karaa haddii qof aag shacab qori wato aagii dawladda ay degneed isagoo qori wato waa runta taas waa jirtaa hopefully in aan xalinaan isku day 20 sano kadib markaan ilmihii korinay waxaan isugu imaanay dalkii aad u burbursan annaku qabiil ma lihin gobol ma lihin jabhad ma lihin oo gabadh jabhad leh miyaynu lahayn yaa Soomaali ah yaasa Soomaali noqon kara qof kasta oo ku dhashay gudaha Soomaaliya dhalasho ahaan waa Soomaali maxaa keenay in waqtigan hadda la joogo Ingiriisku faragelin ku soo sameeyay siyaasadda Soomaaliya 19 sano kadib uu dhibaato ay ka dhacaysay waxaa dhacday caruurtii ay iyaga tarbiyeysteen wadankooda ku dhashay wadankan lagu barbaariyay ayaa noqday wixii ay ka cabsanayeen in Soomaaliya laga arko kulantii wacan oo wanaagsan intaana daawanaysa idlahaantiin baa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga TV oo si toos ah kaga daawanaysaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed stuudiyaha magaalada London barnaamijkan aynu ku soo qaadno dhacdooyinka cusub ee Soomaalida quseeya xagga siyaasadda meel kastoo caalamka ay ka joogaan qaybtan caawa waxaan ku soo qaadan doonaa door intee leeg ay haweenku ka qaadan karaan dib u dhiska ama isbedelka cusub ee Soomaaliya sidoo kale taariikh ahaan haweenku sidee bay ku ahaayeen taariikhdii sooyaalka ahayd ee xornimada iyo dawladnimada Soomaalida waxaan kale ku eegi doonaa howl hoosaadka hoose iyo xafiisyada dawladda haatan jirta door intee leeg ay ka qaadan karaan qaybahaas oo faahfaahsan ayaa dabcan barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxa marti uga ah oo barnaamijka ila jooga oo dhinacayga fadhiya Marwo Isabella Hussein Geedi oo ku nool dalkan Ingiriiska kamid ah haweenka sidaadka ugu dhagal nugul arrimaha Soomaaliya sidoo kale waxa igala qayb qaadan doona Nadiifa Sheekh Umar Tuure oo iyaduna ah madaxa maareynta masiibooyinka qaranka qaybta barakacayaalka ku soo dhawaada labadiina aad iyo aad waa dhowna waxaan jecelahay ugu horeyntii inaan ka bilowno taariikh ahaan inagoo wax badan sii taaban doona taariikh ahaan haweenka Soomaaliyeed dhalashadii qarannimada iyo dawladihii hore door intee leeg ayay taariikh ahaan ku lahaayeen marka loo eego xagga dawladnimada iyo maamulka waxaan jecelahay Marwo Isabella inaan arrinka ka weydiiyo bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsantahay socoto haweenka Soomaaliyeed waxay soo mareen taariikh aad iyo aad u fog sooyaalka taariikheed waxay ka qayb qaateen xorriyaddii dalka waxay ka qayb qaateen Lego waxay effort geliyeen in ka badan raggu runtii ninka leegada ka tirsan 1 shilin ayuu bixin jiray haweenku laakiin shilinka iyo dahabka isku diri jireen waxay kala sameyn jireen oo ay ku dadaali jireen qalabeynta xafiisyada markii xornimada la rabay Soomaaliya in la gaarsiiyo waqtigeedina la gaaray كونتني لحدي لقى أتكاد النازجي يتليانجي دولتها غربيان يقوليستين يونيت نيشن كنا ويري وحن دوني إن كرجنه دولة مدح بنان نمان بريطانيا اللي لو كسر شيء باشر نمان كلا جدها يا وين كلا جدها رنتي أدو هالجمي وربي دلكو إنه دبوا النقطة قعنتي جميسي دتك أدو دي ده وين كمدها وصفك وركوت شري مدهرات هذا قبل شري ما قرت هبيني مال أسود شيء مدهراتكي ugu weynaa markii la hal la ogaaday inta rabta xornimada oo dhagaxtuur la isugu soo baxayna hadda haweenka ku geeriyooday waa la socota xawataaka kamid ah kuwii xabsiyada ku dhalay waxa kamid ah Timiro Ukaash oo iyadoo xiran xabsiga ku dhashay marka ayagoo waliba beeraho ay u dheertahay inay caruurtii iyo odagii iyo baxnaanadiisa howlahaas oo dhan ku mashquulsan haddana أهمية كوباد مر والبا هذا حاول كل مرة كده واحد دينا رجع كده بيا إنه يستخدمن بسوق جدانتي لكن نصيب درو ولا جا نمكي بريطانيا كامر كتوريا ده إيو أي بلابين إنه محلي هذا إيش بعشي مريض كله هي توران كبدي أكون عادي أحد
marka gabdhaha lama soo koobi karo arinta ay dalka u qabtaan sooyaalka taariikhiga marka ibkaasoo dhan ay soo mareen oo taariikhdaas ay ku leeyihiin uu dagaalkii xornimo dhalinta markii dowladdii ay dhalatay calanka la qaatay wax ma ka qayb qaateen xagga dowladnimadii ma laga siiyey nasiib daro socotow dowladdii 56 dowlad kooban bay ahayd runtii baahida oo aada iyo aad dhaqaalahu aada u yaraa awgiis 56 wasiirada dhan 6 bay ahaayeen ma tira badnayn lagama qayb gelin waysa mudnaayeen aada bay u mudnaayeen laakiin waxaa ku xigay kacaanka dowladdii kacaanka runtii gabdhihii markaas ka qayb qaatay waxaa kamid ah rectorka jaamacadda oo dhan gabar bay ahayd avocatura general wixii ka shaqeynaya gabar bay ahayd wasaaradda tacliinta sare gabar bay ahayd wixii haystay oo wasaaradda haysatay gabdhuhu markaa qayb waa laga siiyey runtii laakiin ma ahan qayb aan oran karno waa ku qanci karnaa markaanu aragno halganka meeshaan uga jirno ama xoolo bixinta markay noqoto marka taas ma la dhihi karaa waxay ay daba joogtaa midda hadda jirto oo baarlamaanka hadda jira horaantii intaan lasoo dhisin lagu sheegay inay boqolkiiba 30 ku leeyihiin laakiin aanan dhammayn xitaa boqolkiiba 2 ma la dhihi karaa waa wax soo yaal oo iska soo taxnaa in haweenku mar walba qaybtooda ay maqan tahay aada iyo aada waa soo yaal waana soo jireen sababtoo ah halgankii waa ku nafbaxeen waa ku ilmo waayeen waa lagu xiray lamana siin intii ay ka mudnaayeen aqoontu intay rabtaba hal ekaatay midaan labaadna lama siin midaan saddexaadna sidoo kale hadda quotada marka lagu leeyahay estimation baan la sameyn haddii quota la xisaabahayo marka in haddii estimation la sameeyo waa ka badannahay ragga qiyaas haddii ay noqoto dhaqaalo bixinna hadda anu mar haddaan dhaqaalihii bixinayo xigmadda waxa iga qadiyay maba garan karaba inaan ka qayb galayaad xigmadana laakiin alcumuuman weli waxaan u taaganahay oo aan raadinaynaa waxaa la yidhaha women empowerment and social development inay haweenku qayb lixaad ka qaataan dalka awoodihiisa ugu sarreeya waa tahay Isabella aadam astaxu soo laabanaya nadiifa xagga arrimaha bulshada Isabella sida ay sheegtay Isabella waxay tibaaxday in haweenku door weyn ka qaateen dhalintii qarannimada inkastoo markii dowladdii ay dhalatay iyo waqtigii dambe dowladdii kacaankii oo madaxda ka ahaa Maxamed Siyaad Barre ay meelo qaarkood shaqooyinkooda ka muuqdeen dhinaca kale arrimaha bulshada marka la eego door intee leeg ayaad isleedahay taariikh ahaan waayadii hore way ku lahaayeen haweenku bismillaahi raxmaani raxiim abay sidee sheegtay waxa way dumarku markasta waxay ahayn horyaal ma ay ahayn maaragtay dad oo maaragtay gadaal mara ama wax gadaal marsada dawlad kasta oo maaragtay ama jihaadkii markii la soo galay oo la dagaalanka isticmaalka la soo galay sida abay taariikhda u sheegtay iyaga front line joogo ayay haddana waxyaalaha kale oo hoosaadka ah oo maaragtay maslaxadii iyo wanaagii iyo dadkii abaabulkoodii wax u raadinaysa iyo waxaasoo dhan way ku jireen oo caruurtii maaragtay waxbarashadii ummadii inay isbedesho in gumaysigii la diido yani waxyaalo badan ay sameyn jireen sorry haddii intii Siyaad Barre aan u imaadana sidaas oo kale yani iskoolada anaga aan wax ku soo baranay iska qabsaa lagu dhisay waxa dhis haweenka ahayn waxa gurbaanka wata iyaga ahayn waxa bulshada kicinaya iyaga ahayn xaafadaha waa laga yaqiin xaafadaha maamooyinka heblooyada iskuul wada waay ururka haweenka ku jirta iyo dad waxay ahaayeen macnaheedu waaya maxaad ku dari lahayd xagga bulshada dhabarka maxaan rahaa laf dhabarta bulshada haweenku qaybtay ku lahaayeen dabcan sida ay nadiifo tilmaamayso waa mahadsantahay socoto haweenku kaalinta ay ku lahaayeen runtii waxaa qiray awoordi wax la siiyey adduunka waxa ka jira maanta inta haweenka lama siin ragga waxay ka hadleen masraxyo waaweyn oo adduunku wada fadhiyo gabdhihii awoordiga la siiyey 20 sano runtii magacyadooda waa badan yihiin hadda ma wada xusi karo waxaa ka mid ah Caasha Xaaji Cilmi waxaa ka mid ah Maryan Awreeye waxaa ka mid ah Doctoresa Xaawo waxaa ka mid ah gabadhii ugu dambeysay iyadoo jiran walaasheed ay awoordiga hadda u qaaday marka
waxa isweydiin leh 20 sano haweenkiiba awoordiga qaatay waxay ku adduunkiiba aqoonsaday inay laf dhabar yihiin waxaan rabnaa markaa in dalka iyaguna uu aqoonsado guri walba waxa baxnaanisay runta hadda rabtaan gabar baa baxnaanisay markii dagaalkii sokeeye la yimina advocacy-ga ugu weyn haweenka sameeyay oo ragii isku soo jiiday oo qaaday oo nin walba ninka kale u soo dhiibay oo gabadh walba gurigii iyo heshiis walba advocacy-ga ugu weyn waxa sameeyay haweenka inay rag isku soo jiidaan inay isku keenaan inay dhaanbal maanta talada qaata ma garata inay ka hadlaan xuquuqda dumarka dhaha la kufsaday anigu waxaan soo يعني goobjoog u ahaa xamar markii aan joogo 2004 baan ka soo tagay xaadir suxufiyan ah wax badan baa korkayga ku dhamaaday gabar labada gacnood ninkeedu gooyaha anigu aan marqaati ka ah waxyaalahaas oo kale gabadh falsaas oo kale ah oo dhibaato badan hadda aan rabno abiilkayga ugu dambeeyay inaan ka dhigno qaabka iyo waxa diidahay wiilkii aan isku kalaaska ahayn aniga oo isku diplomka aan ahayn ama aan ka bad natiijo sareeyay wasaaradaha inuu meeshu raba ka tagi karo aniguna aan tagi karin dhaqaalaha markii loo baahayay in aanu bixinayo markay noqoto xigmadana in la yiraahdo waa gabar joojiye waxyaalo badan waxa jira haweenku ay ku fiicnaan dalkan aan joogno waliga maartay bangi uu ni joogo haween baa fadhiya dhaqaalaha dhan ma garad haweenku waxay ka qayb qaadan karaan xuquuqiyaadka dhan jurisprudence waxa la leeyahay wixii sharci ah maxkamadda sare xeerlaalinta guud wixii loo baahan yahay dhan waxay ka mid noqon karaan agaasimayaal waxay ka mid noqon karaan hawsha hadda dhiman oo dhan qayb lixaad leh runtii ka qaadan karaan hoosoo noqon doona qaybta hadda aan ku helnay ammaanteeda gadaal baan ka soo sheegi doonaa dabcan hadda waqtiga la joogo haweenku inta aanan dawladda wasiiradeeda la magacaabin aad bay u dhaliilsanaayeen qaabka loo ballan qaaday iyo sida aan loo siinin numbarkii loo ballan qaaday nadiifo maxaa keenay inay haweenku waayaan kuraastii 30% inta ahayd la sheegay inay baarlamaanka ku yeelan karaan ma haweenkii baan doonanin ma xurguf kale ku timid ma waxa sababi kara xagga qabaa'ilka waxa lagu qaybsaday والله صعدت وسؤال آد ومهم أنا من ضد كده جوجان بقى oo maaragtay aan loo sheegaynin culayska ugu badan ee gabdhaha ku dhacay waxay ku yimaadeen horta waxa la yiri beelha lagu qaybsado beel markii lagu qaybsado tiradii baarlamaanka oo nus la dhimay oo mesela baarlamaanka hore waxa ognahay inay ku jireen hogaamiye kooxeedyo dagaal oo niman ku yimid dagaal maaragtay inay awood ku sheegteen wax laayeen wax dileen maaragtay hebel waa doofaar dhal waa dirac waxbuu laayaa isbaaradaas uu sameystay intaas uu qof uu dilay reer hebel uu baabi'iyay maaragtay niman xoogooda ku joogay niman kale oo iyagana xoog ku jooga laakiin si dadban ahay oo nimankii maxaakiimta ka yimid ahay oo iyagana dagaal ku yimid ayay ahaayeen wax baarlamaanka horta meesha isugu tagay ma jirin maaragtay dad markii hore la isugu keenay maaragtay war yaa wax qaban kara iyo yaa neematala markii ay hadda yimid xaafal laga dhigo 525 ahayn taariikhda tirada baarlamaanka hore ku jirtay markii la yiri nus laga dhigo nin kasta meeshiisa ku muraarada lacag sababta Soomaalida inta badan waxay caadeysataa ama dhaqan ka dhigataa hadii misalan adiga meeshan mas'uuligaaga dhiga ka ina adiga leedahay ama beeshaadu leedahay ama hadda adiga ka tagtay in adeerka la keeno sababta waxa ognahay xukuumadda hadda oo xukuumadda Cabdiweli ka horeysay oo farmaajo markii la kala diray kuraastoodii dad kulligood ilma adeeradooda ay keeneen oo maaragtay oo keenay marka hadii aantii marka baarlamaanka ku soo noqdo baarlamaanka tiradii la dhimay su'aashayda ku soo noqdo tiradii markii la dhimay oo 275 laga dhigay oo beel kasta la yiraahdo ha laga keeno maaragtay 30% gabdho waxa ula jeedaa aan gadaal u laabto ilma adeeradooda keenay ma dad ما كرسي إسلا هيسين. For example أنا وزير أنا هاي دولة فرماجة ولا يقعد دولة عبد الوليات مسمى كرسي كم تجا ولا كيان كينا من هذا كيان كينا. أنا ما بعرف ولا جدا. ما يروحن كودا دولة دي حكومة دي مركز شرطي. مركز برلمان كنا فيري وحن درجة واي مكت وإسلا شقيا سيستمك. وح إسلا شقينا حفيزك وكرية كان كل كان كلا سيراس ومارك حرير ودحيان. marka 525 xubnood oo la dhimay oo baarlamaanka oo 225 laga dhigay maamulkeedu waxa gacanta loo galiyay odayaasha dhaqanka inta badan waxay maaragtay yaqaanaan ama ay wax ka qaadanayeen nimankii hore ee ku jiray baarlamaanka ragii hore ugu jiray gabdho badan kuma jirin
tanasul beel kasta way ku adkaatay inay ka tanasulaan sababtoo 3 nin haddii ku jirto 1 nin aa looga baahday soo ma marka taa micnaheedu waxa qaybta qabaa'ilka lagu qaybsadaa haweenka ka maqnaysiisa marka qaybta qabaa'ilka lagu qaybsaday odayaasha dhaqanka ee qaybiyay ayaa horta ka maqnaysiiyay iyo gabdhihii oo xishoonay iyagoo loo diiday oo xaq u leeyihiin oo leeyahay hal la keeno ayaa haddana beelo badan oo gabdhaha ka tirsan oo aan ku jirin ayaa jira oo Soomaaliyeed oo aan hal gabar ku jirin ayaa jirto oo macnaheedu on taariikh hadaad baarta aad arkaysaa because 65 markii beesha la siiyay waxa la rabo ugu yaraan maartay 34 inay ku jirto ama 20 iyo xoogaa laga sugaa inay ku jirto ayna ku jirin ma garad gabdhihii marka anaga markasta waxaan ku dulmanahay gabadhii xishoonayso يعني iyadii oo maaragtay dadkii siday ragga isku dilayaan aanay isku dileen ka xishoonayso idaacadii ka xishoonayso inay tiraahdo ninkii iyada ka qabiilka ka ahaa ee beesheeda ugu weynaa ayaa iga eexda ka xishoonayso oo aan dhihi karin maaragtay umada kaale ila arka kiina adeerkeed ahaa ee kursiga iyadu rabta la dhinac socday ka xishoonayso inay kula dhigto tiraahdo ina adeero aniga aqoontaad leedaan leeyahay dadnimada leedaan leeyahay kursigan kursi beeleed waaye ninku ma qoro naaku ma qorno inta adiga leedahay aniga leeyahay shalay hebel qaatay maanta heblaha la siiyo ay kala xishoonayso marka waa culays dhaqanka iyo xishoodka gabdhaha Soomaaliyeed waaya Isabella waxaad ku dar lahayd in haweenku ay waayaan baarlamaanka hadda jira tiradii loo ballan qaaday maxaad u eedeynaysaa maxaad ku leedahay waa sabab bay u tahay saato sababu waa badan yihiin midda ugu horeysa wax soo jireenaha jiray kaaba qabiilka aniga kaaba qabiilka way ku adag tahay inuu gabar yiraahdo waa soo saaraya anigu waagi waxaan dhiri markii la yiri oday dhaqanka soo saaro war asaga bal seminar loo furaa si loo ogoleysiiyo 130 gabdhuhu ay leeyihiin sababta asaga hadaan la ogoleysiin ma ahan dadka beeraha iyo qalinka wax ku qorooda dhaqanku dhaqan buu yaqaanaa meesha oo la rabo in la garto waxa weeye ninka dhaqan buu yaqaanaa dhaqankuna beero ugu ma qornee niyad ugu jira mar hadduu qalbiga ugu jiro ninkaan ma soo arkin kunkiisana jirtay gabar geeskiisa taagan iyo gabar xisaabtamaysa iyo gabar xuquuqdeeda raadinaysa anigu marka dawladda waxa ma ka codsaday waagaas asaga ninka oday dhaqanka in seminar loo furo ma garata dawladda laftirkeeda wasaaradahan hadda ay abaayo ka dhawaajisay oo ahaa ninka in adeerkiis buu keenayay taas anigu shid baa ku siinaya maxaa yeelay bel baa lagu qaybsanaya 4.5 wax la yiraahdo ninka meesha markuu ka tago in adeerkiis buu keenay wali systemkii ma saxna inta ay beel taagantahay waayahay waxaan isku raacnay in ay sabab u ahayd in haweenkii meesha ka maqnaadaan qaybta qabiilka lagu qaybsaday inay keento mustaqbalka soo socda 4 sano kadib baarlamaan baa la doonayaa in la dhiso marka ma hadii lagu qaybsado soo gabdhiina sidii kama maqnaanayaan maxaa talaa marka maya waqtiga taariikhda waxba laga bartaa waa jirtaa mar aqoontii jaahilka loo lagday waa jirtay waa soo marnay anagu oo aqoon daridii dadka loo lagday laakiin maanta oo aan isleenahay hogaanka dalka ugu sareeya iyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud nin aqoon-yahana ra'iisul baarlamaanka oo nin aqoon-yahana saacid oo prime ministerka oo asaguna aqoon-yahana wasiirka koobaad yani waxaan isleeyahay diilada ugu fiican oo maanta aan dhihi karno waxa lagu garan karaa yani gabdhaha wasaaradaha hadda la siiyay waa wasaarada wax ku oola runtii 4 wasaaradood oo xuquuqda haweenka oo dhan ay wasiirka maanta ee hogaanka haysa ay halka ka soo ambaqaadi karto weeye gabadha kale sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaare ku xigeen ma kula tahay inay ku wanaagsan tahay nadiif inaan gabdhaha loo eegin qabiil ku yimaadaan laakiin hab kale oo qoondaysa oo aqoon ah inay ku soo galaan oo aan qabiilka aysan wax ka doonan inay ku wanaagsan tahay si loo helo si cadaalad inay baarlamaanka ku yimaadaan mustaqbalka soo socda wallahi gabdhuhu mar hore ay sheegeen barnaamijyo badan programo badan oo ay xamar ka qabteen waxay dhahan anaga beesha lixaad aan la yiraahdo sababta ay u dhahan beesha lixaad aan la yiraahdo waxay ogaadeen 5 beelood oo Soomaaliyeed oo loo qeybiyo inay waxba ka dhaxeeyeen marka waxay go'aansadeen inay beel kale iska sameystaan oo la yiraahdo war 5 beelood waa qaybsadeen beesha lixaad maxaa looga ogolyahay sababta gabdhuhu waxay ogol yihiin inaan qabiil la isku fiirin gabdhuhu waxay ogol yihiin inay is respect garayaan gabdhuhu waxay ogol yihiin mid walba waxay taqaano inay ta kala ku qadariso
gabdhuhu waxay ogol yihiin inay macnihii experience qualification waxaasnan ay isku qadariyaan gabdhuhu waxay ogol yihiin inaan colaad dhex oolin inaan xabad dhex oolin inaan waxba dhex oolin ay ogol yihiin inay hooyo tahay inay eedo tahay inay xaas tahay inay adeer tahay waxaas dhan ay ogol yihiin waa dad flexible waa dad gabdhuhu inta badan waa honest waa dad daacad ah waa dad nimanka ka qalbi fiican waa dad maaragtay waxay qabanayaan xataa dhiso sababta waxaa ku ogaan kartaa gabadha xafiiska kaala shaqeysa waxaa laga yaabaa adii subax markaa soo kacda quraacdaada diyaar laakiin gabadha xafiiska kaala shaqeysa inay quraac soo diyaarisa reer soo abaabushay wixii soo time management kaaga fiican tahay isla main time shaqadeedii ay timaaday markay baxday wixii gurigeedii ay qabatay tii qaranka iyo tii qoyskaba intaba ay u taagan tahay waaya waxaan usoo laabanayaa dowladda hadda jirta marka Isabella dabcan in yar waxaad moodaa inay ka yara qanacsan yihiin markii baarlamaanka loo eego hadda dowladdan wasiirada lasoo magacaabay waxay imaan doontaa qaybsi ama magacaabistii xilalkii hoose wasaaradihii xafiisyadii hoose door intee leeg bay haweenku ka qaadan karaan dhismihii dowladda aad moodo hawshii ugu adkeyd inay dhiman tahay weli saacta waa runtaa hawshii ugu culseed waa dhiman tahay door intee leeg bay haweenku ka qaadan karaan marka waxay ka qaadan karaan doorka ugu wanaagsan bay ka qaadan karaan waxay ka qayb geli karaan agaasimayaasha inay ka mid noqdaan especially maaliyadaha iyo meelaha halbowlaha ah oo loo baahan yahay inta dhaqaaluhu soo kabsanayo haweenku inay ilaaliyaan waxay ka qayb qaadan karaan xataa cuquubiyaadkoo dhan way ka qayb maxkamadaha xeer ilaalinta gabdho waxaa jira soo bartay sharcigii baa dalkii jooga gabdhihii jaamacaday hadda ka wada baxeen sidii hore maaha taas waan ku leeyahay berri dubabka jira duubka ugu adag bay noqon doonaan ninbaa wuxuu yidhi dubabka jira duubka ugu adag bay noqon doonaan sababtoo ah gabadhu markay ebido qoyska oo qoyskeedii ay taajiso qaranka wajaaj markee qaranka lagu sheegay waa qofkii qoyska ebiyaha qarankana waa ebyi karaa oo meesha ugu wanaagsan buu istaajin karaa soo waxaad gartay ragga laftirkooda rag waxaa jira haweenka buushgareeya oo talada siiya oo la wada oo yiraahdo halkaa ka mara halkaa ka mara halkaa ka mara halkaa ka mara ma garat waqtiga soo socdaan cabsi walwal badan kama qabo haweenku inay xuquuqdooda waayayaan laakiin doorkaas ay ka qaadan karaan soo ma xadidi karo sidii baarlamaanku u xadiday qaybsiga qabiilka ama qaabka loo qaybsaday sidii soo kama xadidi karo in ay meesha la rabay inay tagaan dowladda qaybteeda hoose hadda for example wasaaradihii hore waxay ahaayeen dhowr iyo 10 wasiir bay ahaayeen baan u maleynahay hadda 10 wasiir baa lagu soo koobay Soomaalida waxbaa loo sheegaa waxbaa la tusaa ma garat qaybta qabiilka anigu waxaan qabaa gabdhuhu inay ka gudbeen markaan oo gabar walba aqoonteeda ay ku durugsan doonto meeshay rabto waa dhamaatay markii aqoonta la lagdi jiray maanta waa qotontaa waa taagan tahay annaguna waxaan rabnaa inaan dalka decision makerska ugu waaweyn inay qayb galaan runtii dadka go'aamada waaweyn qaadan kara marka cabsi kama qabo qaybaha hoose mudnaanta ugu koobaad inay leeyihiin waliba waa ku talinaynaa haddii dowladda kolleyba iyada iska leh ama wiirta laakiin in meelaha halbowlayaasha ah dalku intuu ka kacayo in gabdhaha loo dhiibay aad baan ugu talin lahaa anigu ay nadiif doorka weyn ka qaadan karaan howlhoosaadka xafiisyada wakaaladaha iyo wasaaradihii waxay ila tahay nadiif ahaan waxay ku xiran tahay rajada gabdhaha Soomaaliyeed waxa ay ku xiran tahay hadba dowladda hadda joogto uu madaxweynaha ka yahay Mudane Xasan Sheekh sida ay u shaqeyso sababtoo ah waxa waaye marka leadership fiican ah heshid oo nidaam la helo ayaa xuquuqda leeyahay international community-ga ama scholars-ka waxay qoraan good government inay wax walba iyada dowladda wanaagsan inay iyada wax walba mujtamaca ay ka mid garayso marka haddii shuruudihii laga rabay dowladnimada wanaagsan ee calaamadaha ahaa ay dowladeena hadda joogta ilaahay ku duwo waxa ilaahay kugu duwin maba duumaan oo ay noqoto sidaas maaragtay oo for example ay noqoto dowlad transparent leh oo wax walba maaragtay loo jeedo oo ay kala cadahay way mesela leedahay qofka macnaa laaluush qaata sharcigaas qabanaya qofkii qabyaalad qof kale waxa uu sameeyay kaas qabanaya qofkii dhiig muslim qof gooni dhibaato u geysta saana qabanaya sharciga uu kala cad yahay hadii maaragtay accountability leedahay xisaabtan uu jiro
oo la ogyahay qofkan iyo waxaan qaladkan uu gala meeshaan ku jiro inkaamkaasaa soo galay dowladda intaasaa ku baxay intaasaa soo hortay intaasaa canshuur soo gasho intaasaan u baahannahay balance oo maaragtay isxisaabin ay jirto haddii ay jirto maaragtay isku jawaabid oo maaragtay oo time maaragtay limited camal مثلا مشروعنا القبنا دولته waxay dhisaysaa wasaarad fulaan ama wakaalad fulaan intaasoo shaqaale qaadanaysa muddadaas ay ku qaadanaysa intaasoo lacag ay gelinaysa intaasoo faa'iidaha ka soo baxaysa community macni wax walbaba ay sidaas hadii la helo waxaan aaminsanahay inay gabdhaha xuquuqdooda ay helayaan hadii aan la helin oo sida ay hadda ku socoto waxaan u maleynayaa inaan wax siyaado ah soo dhici doonin sababta aan u leeyahay waxay tahay systemka hadeertaan wax lagu bixiyo ma aha maxaa taqaanaa Soomaaliya marka reality-ga la isku sheego sababtoo marka reality-ga la isku sheego oo qaladka la ogaado ayaa daawada la helaa laakiin inta aan qaladka dabooleyno ama aan isdhaafinayno dabcan dawladdan waa dawlad cusub wax qabadkeeda weli maanan arkin waxa aan ku noolnahay waa rajadeeda Soomaaliya waxay jiraa adduunyadu waa cudur daawadeeduna waa rajo rajada aan qabnaa waxay tahay in ilaahay dawladdan dawlad fiican ka dhigo in ilaahay dawladdan dadka mas'uuliyiinta ah maasha Allah aan ku wada qanacsanahay ay ilaahay tubta toosan oo ummadda Soomaaliyeed danta u ay helaan hadii marka dadkan ay tubta toosan ilaahay tuso oo maarta bixarfu waana shuruucdii iyo wadanka nidaamka ay dejiyaan gabdhaha Soomaaliyeed xuquuqdooda way helayaan sababtoo tii khibrad leh tii shahaado wadato tii wax ayay wax ku helaysaa laakiin sidii hore oo arki jirnay hadii مثلا la yiraahdo kursigaana banaan maanta oo 5 alxamdulillah rabbil alamin dawladdan 4.5 way banaga dhaaftay 5 wax lagu qaybsanayaa macni 5 hay-adooda jirto 5 agaasimooda la bixinaa hadii la dhaho 5 beelooda min hal laga soo qaadaa systemka caadiga oo la yiraahdo BLA qof loo rabaa kaaba qabiilkii iyo nimankii kulligood waxay wadaan nin inaba inay gabar keenaan absolutely حتى هذا قبل تماذا ويبلا يابا يا معجزة كتاه مرك حاجات كينا قبلين وايه waxaan rabaa in markaan u leexano xagga dawladda hadda jirta si loo sugo amaanka si ay dawladdu u shaqeyso waxay u baahan tahay inay shacabku taageeraan sidee bay marka dawladdu ku kasban kartaa kalsoonidii shacabka si ay dadku ugu dhiiradaan inay soo dhaweeyaan dawladda tala ahaan maxaa ku haboon inay dawladdu ku dhaqaaqdo si ay u kasbato xasiinaya Isabella shacabkii kalsoonidooda si ay u kasbato maxaa la gudboon inay la timaado qorshe nooca ayaad silaadahay ku haboon tahay inay keenaan bismillah socoto horta su'aashaas aad wanaagsan weeye dareenkii dawladnimo muddo maqnaa horta dadkii dareenkii dawladnimo in lagu soo celiyo waxyaabaha ugu weyn weeye oo maqnaanshadiisu maaha waxaan anta sabuurad ku qornaa hal mar ma sixi karno mise dadka loo siin karo kaabayaal badan oo waxa abuurmay diidahaya dawladda culays badan baa halkaa ka jira kaabayaashaas dadka 20 sano loo baxshay ilaahyada dagaalka ama warlordska loo baxshay xakamadooda ayaaba dawladda muddo badan ay ka qaadanaysaa runtii si dareen dawladnimo loo gaarsiiyo dadkii waqti dheer bay ku qaadanaysaa laakiin anigu waxaan qabaa hadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu broadcasting ka badiyo ama hadalka uu ka hadlahayo dadweynaha inuu la joogi jiray inuu sawirgii meel ka aadin dhibaatada inta badan inuu og yahay ma garatay dawladnimo waxay tahay dareenka noocaas hadii lagu soo celceliyo oo dhagaha dadka uu galo aniga waxaan qabaa dadku dareenkii dawladnimada uu soo noqonayaan dawladdu waxay tahay ogaanayaan markay helaan nabadgelyo caafimaad helaan ma garatay dhibaatadii dareenka cudurka iyo gaajada ee dhulka u galeen ay kaga soo noqdaan marka dawladdu waa ag dhiganaysa laakiin awalan waxyaalaha aan aadka u jeclahay inta aysan bilaaban ba xisaabtan iyo financial ethic iyo monitoring service iyo dawladdu especially madaxweynuhu broadcasting inuu badiyo dadka dhagahooda war badan ku shubo inuu wax badan hadlo oo dadka u qudbeeyo ay nadiif maxaa ku dar lahayd kasbashada dawladdu ay kasban karto shacabkii si ay ula shaqeeyaan anigu waxay ila tahay ummadda Soomaaliyeed waxyaalo badan ay soo martay taariikh soo jireen oo kala duwan ay soo martay
alxamdulilah rabbil caalamiin maanta marxaladda waxaa la taagan yahay qof walba uu rabo dowladnimo uu rabo maaragtay nidaam maaragtay saxa uu rabo cadaalad uu rabo sinaan uu rabo maaragtay inuu helo marka dowladdu weyga kaliya aniga waxay ila tahay ku kasban karto waxa waaye markaan raba aniga kalsooni waa inaa adiga i tustaa macnihi madaxda dowladdu waa inay tustaa shacabku inay maaragtay dowladdu ay madax u yihiin shacabku sababtoo ah dowladi ma jirto haddaan shacab jirin haddaan madaxi jirinna shacab keligiis maamul ma jiro marka dowladda waxaa laga rabaa inay samaysato nidaamkaas oo kala xadidaya for example waxaa jira media badan oo ka baxa saxaafad badanaa jirto saxaafadaas sharci badan oo lagu xukumi karo xakameeyo ma jiro wixii ay rabaanay sheegaan kaasoo qaar keenaya ammaanka inuu qalqalgeliyo waxyaalaha qaarkood saxaafadaha qaarkood ay sheegaan qaarna uu amniga iyo wanaagga uu kordhiyo marka dowladdu inay sharcigi soo celiso ay kordhiso saxaafadda amniga iyo wanaagga iyo khayrka sheegayso inay dadka kalsoonida tusto ay shacabka wixii dowladnimo waxay ku arki jireen dowlad iskool dhigata oo firiya dowlad dhakhtar leh oo firiya dhakhtar anytime la baxayo oo firi ah meel aan waxba canshuur laga qaadayno isbaaro oolin oo firiya oo lacag la-aan inay waxaasoo dhan dowladdii tartiib waa ognahay macnihi caawa wiil dhalhana socdo maahan laakiin tartiib inay usoo celiso hadda dowladdii hore oo madaxweyne shariif ilaahay khayr ha siiyo waxyaalihii fiicnaay qabata waxay ahayd inay iskoolada iyo dhismihii dowladda dadka ka saarto dowladda inay one step forward samayso iskooladii waa banaayin wasaaradda waa degan tahay shaqadii la bilaabo ha yaraato ha badnaato caafimaadka la bilaabo dadku waxay dareemayeen marka inay dowladnimo jirto dowladnimo joogay leeyahay waaya waxyaabaha dadka dowladnimada maamulka markaas jira kusoo dhaweeya waxaa kamid ah cadaaladda haddii cadaalad darro ay timaado waxaa lumaya qalbiga iyo kalsoonida dadku ay u qabeen maamulka meesha ka jira sidoo kale kalsoonida iyo ama shaqasiinta oo kale cadaaladda shaqasiinta qaabka dadka macnaha in si cadaalada dadku ay u helaan shaqada dowladda oo kale arrimahaas sidee bay ay dowladdu isleeda ku maareyn kartaa inay wanaajiso wallaahi socotow geedi socodka dowladda waxaan ka sugaynaa waxa weeye oo aan ka codsanaynaa 3 waxyaalood cadaalad sinaan iyo horumar saddexdaa dalku hadduu helo waa guuleysanaya qodobka kale haddii la waayo gudolaalaha ay raggu raadinayaan dowladdii aan weli dhaqaaqin dowladda yacni waxaan si crystal u arki doonaa markii howlaha ay guda galaan laakiin haddaan sii saadaalino ama se aan ka hor dhacno ama se aan godoleelo u raadino ujeedo ka raadino hawsheediba ma qabsan karto anigu waxaan qabaa hogaanka maanta jira runtii iyo qaabka awood darrada jirta markaan ku leeyahay for example 1956kii dowladdii cabdullaahi ciise 4 wasaaradood oo loo dhiibay maryan qaasim wasiirka social serviceska hadda waxaa la oran jiray affaires social la oran jiray ama arrimaha bulshada ma garad 4taas cali jamcaalin liyaa isku hayn jiray nabadgelyadu intaan waa ka rooneed laakiin dhaqaalaha yaraa sida hadda dhaqaaluhu isu jirin oo kale marka haddii sida hadda waxna loo xakameeyo runtii iyada diiladana na gelisay qaabkaasoo kale oo aada moodid in 5 wax walba lagu qaybsanayo iyadoo meesha ku jirta mar walba in nin lala ordahayo laakiin competitionna waa lagama maarmaan oo markii hore aan ku sheegay wiilkaas kalaas kusoo baxnay haddii imtixaan la geliyo waxaa suurtagal inaan ka buunda sareeyo laakiin inuu asaga shaqada helo taasoo ciladaha jiray ka mid tahay laakiin annaga codkayagaan rabnaa inaan kusoo saarano inta dambe oo dhan waay nadiifo waxaad kasoo shaqeysay soomaaliya hadda dowladdii hore sheekh shariif middanna waad la joogtay xasan sheekh dowladdii hore waxaa lagu xantaa in sinaanta shaqasiinta ay xoogaa ay dadku aada u dhaliilsanaayeen taa ma laga yaabo inay keento in dadku kalsooni siin waayaan inay dowladdii ay u dhaganuglaadaan ama inay la shaqeeyaan ay ka gaabsadaan horta waa suuragal horta laba culays buu waa jiraa ma aha macnihii ina maaragtay aan sinaan la-aan laakiin waa cadaalad darrada dowladda soomaaliyeed
aaskeedii hore lagu soo dhisay oo ahayd 4.5 marka haddii waxa maaragtay hal maxaa lahaa xaaraan nibir xalaala ma dhasha camal waayo hal booliin xalaala ma dhasha sorry maamada Soomaalida ma aqaan marka waxa waaye 4.5 lagu soo dhisay beela lagu soo dhisay waxaad arkaysaa wasaarad ya oo wasiirkeeda hebel yahay in dadka dhan oo ka shaqeeya ay wada yihiin wasaarad B 80% ay ninka haysta beeshiisa yihiin dabcan gabdhaha haystaan waa ogna wasaaradihii la soo dhaafay sidoo kale 70% ay yihiin marka xagee cadaaladda ka imaanaysa waxa lagu yiri beeshan waxay tiri ninkan anaga geysanay wariyaha kursiga reehel baa ku fadhisaa hebela jaamacada ka soo baxay hebela baadiye ka yimid hebela inta kii dhulka xaqay ilaa kii u koreeyay 80% iyaga la geeyay marka dadkii masaakiinta ahaa ee kale ee Soomaaliyeed yaa halahan yarka dad ma deeqdo moogta dad la tiriya wax deeqan moogta intii kale xagee aadaya system ma jiro sideedaba oo maaragtay la raaco nidaam la raaco marka anaga dawladdan madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Saacid ya waxaan ka codsanayaa waa recommendation just aniga waxaan recommended waxaan ka codsanayaa inay wax amniga ayaa ugu horeeyay targetkooda marka aan dhageysano khudbadahoodii waxa ay ku xijinayaan inuu yahay systemkii ama haykalkii dawladnimo lagu yaqaan kaasoo ah qofku muxuu yaqaan muxuu qaban karaa cilad kalena waa jirtaa oo Soomaali waxay tiraa maamul xumo abaar guuri ka daran oo ah for example qof baa dhahaya wasaaradan ama wakaaladan waxa u qoran 60 shaqaale ah oo dawladda mishaar ka qaato haddii la yiraahdo soo tiriyana waxa laga yaabaa subax inayna 10 qof ayna shaqo imaan waxaad arkaysaa nin kale oo madax oo sargaal oo ciidan haysto waxa u qoran 500 oo askari inuu u qoran yahay haddii la yiraahdo soo tiri isagana konton uma joogto xagee jiraan dadka waxa laga yaabaa qof shaqaale dawladeed oo meel ka tirsan oo mishaar ka qaato ya inuu meel kalena ka qoran yahay waa fahamtay Soomaa marka ma jiro NI number ma jiro oo qofkan inuu inta ku qoran yahay xagga sheegayso registration sax ma jiro ya xalay meeshan ree abtiga jooga meeshan ree adeerka jooga meeshan ree awowga jooga fara badan waa gartay isbeella waxa muddo nadiif inay taabatay wax badan ay dhex joogtay macnaha taas waxay hoos imaanaysaa xisaabinta in la xisaabiyo ama dabagalkii in wasaaraddan dadka u shaqeeya intay leeyihiin iyo sidii ku shaqeynayaan tala ahaan arrinkaas maxaad leedahay uu ku dhamaan karaa si dawladdu ay u noqoto mid shaqeysa wallahi sida nadiifaba sheegtay haykalkii dawladeed in la soo celiyo systemna dadku ay ku shaqeeyaan tira koobna la sameeyo oo la ogaado halkan ninka ka qoran inuu meel kale ka qornay waa marka loo baahan yahayba يعني سيستم كدب إن لو قد قالوا لكن محد يدهيه واحد يدهيه progress كأنه أن تاجنه هرمرك كأنه أن شوفنه ماش أمره هي مرور بديديس وقتها واحد الربع هذا وده كان أنا يبان كنت شوفنا سو واحد يراسم ما نمبر كشقة إنشورنس كسر كنت شوفنا عشورة الوجوه أنا مركا واحد الله يهدان دم عادم أنت تجو عشقة صوت دونتو وكده بوريجو أستجي بيشيء هي لكن دولة دانوا الدولة هرمرت سوبر باور ويه وجارينا هدي إلى هي رجدا أنك قبل نرنتي وجارينا ما قرأت واحد بدم وقسم واجد هيك الكادون كمان إنسان كم مغني إن ما هذا كجادو نسيب كيسي كنت من الشيخ شريف ما قرأت هيك الكواسون نقضي إندي عالم كواسوت شيستين ما قرأت سيدون تها كنت معدو سو واحد قرأت ما إن حد عبسل لقى ما قبوين إن دب ودجالك أهلي جا أصلا نقضو يدبعت دي شرتي وحنس لا وهجود بني حوجا غيرك هو يعني كله فوق كذا قاعدة وهذا صعوتنا ويسكت ما نسمع كدتكو أي نظام كدولة الدميان والله كم مرمان هدان هيك الكل هلينين دلكو قعنتي وخصوصا نقولها هي أول وكشري وسيستم كلا السحين ونقف والبحر غوض وليه هي واجتماعي جا أوصل هلينين ماشى واحد كي ما نسى كعدون كي بحدنا بلعبنا هي dadkii waliba hadda aqoontii baa sii socota kor bay u sii socotaa marka jaamacadda wiilkii ka soo baxay gabadhii ka soo baxday haddaysan helin meel ay ka shaqeyso maxay sameynaysaa waxay sameynayaan inay ku soo jeestaan
dhulka gaawiyaan dowladda kusoo jeestaan waana dhammaanaysaa marka haykalku iyo systemku waa lagama maarmaan waxaan aada ugu faraxsanahay inay goobjoog ka ahayd ninka maanta markii haddii dabkii dhaxamoodo maxaa lagu dabiibaa haddii ninkii xerada ciidanka joogay uu maanta uu sheegto waxaan haystaa 60 ciidan ah looguna tago 15 waa dhibaatadeeda leedahay marka waxaan leenahay dalka adaa leh ninka ciidanka gabadha dalka iyadaa leh qof walbaba dalka hadduu garto in xaashida dhulka taalla isaga inay mas-uuliyad ka saaran tahay inuu ka qaado haykalkii dowladda soo noqonaya laakiin ninka aan aqoon miiskan in dowladdu ay leedahay waa jajabinaya sidii hore loo jajabsho kale dadkii waa in dareenkii dowladnimo la tusaa 20 sano ka maqnaa wax dhib yar maaha haddaan dareenkii uusan soo noqonin oo ilaahay uusan ku guuleyn madaxda maanta joogta ilaahay uusan maanta ku guuleynin hadda yaa ciidan boo bari doonta lama arko aqoon-yahan weeye ma garatay dalkii baa ilaahay keenay maawalada kale iska daa ilaahay amarkiisa yargaasu ku yimaadeen waa niman aqoon-yahana waa u duceynaynaa godolaale ka fiirin mayno hore u socdaan leenahay waa u hambalyeynayna weliba qaybta haweenka ay ka siiyeen soo waxaad garatay maahan haweenkana waxaan rabnaa oon kula dardaarmaynaa ayagana inaysan nagu soo noqon oo aysan oo nala dhihin hawshii waa gudan waaye waa guteen in la yiraahdaan rabnaa oo halkaa kasii wadaan waana mahadsantahay waaya inagoo soo gabagabeynayna ugu dambeyntii hadalka inta badan waxaad kula laabateen in qodbooyinkii madaxweynaha markii la eegay ku jirtay ammaanka sidee baa dadka iyo shacabkii dowladdu ay iskula shaqeyn karaan amniga tusaale ahaan gobolka banaadir degmooyinka ku yaalo kale sideeba qofkii ama hooyadii guriga degnayd degmo kamid ah ama xaafad kamid ah magaalada muqdisho kale tusaale ahaan ay u gaari karaa nidaamkii dowladnimada haddii ay doonayso inay u gudbiso macluumaad la xiriira amniga dowladda inay u gudbiso ay rabto dowladdiina aysan xarun ku lahayn degmadaas sidee baad is leedahay nadiifo maadaama aad soo dhex joogtay way suurtagal tahay in la isku xiro shacabkii iyo dowladdii way iskaga xirmi karaan meel horta su-aashaas waa su-aal muhiim ah loona baahnaa in laga hadlo sababta amnigu waa waxyaalaha priority-ga dowladana cusub aan ka sugayna inay wax ka bedelaan haddii ilaahay idmaayo marka horta waxaan kuugu bishaareynaya socoto 16 degmo gobolka banaadir inay joogaan xarumo dowladeed ay ka furan yihiin oo ay saldhigyo leeyihiin ay wax walba leeyihiin laakiin nicmad aan dhamaystirnayn waayo oo qofka bini aadanka ama shacabka muqdisho degan inta badan amniga waxay ku dareemayaan macnihii ciidanka markuu isaga xanaankii iyo mas-uuliyadda ciidannimo uu muujiyo waad fahamtay soo maha oo ninka maaragtay hadday wax aragto qofka booliiska ama militariga ee dareeska dowladda haysta ay u imaato maaragtay ay ka heli karto maaragtay wixii xanaane ah wixii information ay rabtana ay markaas u gudbin karto laakiin meelo badan ama meelo kamid ah waxaa ka dhacdo in marka ay arkaan qof labisan ay ka cabsadaan iyadoo ay jirto falal yaryar oo maaragtay dad aan garaadkooda badnayn ama dharka ay xiran yihiinba macnahooda aan garanayn ama qiimaha mas-uuliyadda ay tahay ama inuu calanka ay xiran yihiin ay mas-uul ka yihiin ummadda qaranka ay yihiin aan garanaynin waxyaala yaryar oo taafa ah oo mobile ay qaataan iyo gabdho ay maaragtay dhibaan iyo ay waxyaala sharaftii maaragtay uga qaada inay shacabkii ka cabsadaan marka dowladdu waa inay soo celisaa security-ka amniga dadka kalsooni ay tustaan ciidanka amnigana ay tusaan inay iyagu shacabka mas-uulka ka yihiin meeshana ay u joogaan inay magangeliyaan oo ay tusaan friendly ay tusaan macnihii inayna cadow ku ahayn ay tusaan inay maaragtay iyagu ay markay jiifaan ilaalinayaan ay tusaan markay soo joogaan ay amnigooda sugayaan ay tusaan shacabku intaas hadday helaan albaabadoo furan ay iska seexanayaan aada maasan tahay maxaa ku dari lahayd sabeel xaggaas amniga isku xirkii shacabkii iyo dowladdii meesha ugu dhow hooyada guriga deganee rabtaa inay macluumaad gudbiso xitaa ammaanka la xiriira waxa weeye qaabo badan baa jirta oo markii saas oo kale dagaal sokeeyo ragaaday dalka ugu dhaco loo howlgelin kara dadka waxaa la sameyn kara waxa la yidhahdo ciidamada madaniga ah ciidamada madaniga ahu hadda 10 xaafadoodba 2 nin oo horjoogayaal ah iyo qofkii kusoo saaciday
oo zaa'id ku ah inay raboorkaas siiyaan labada nin oo horjoogayaasha ah. dadkii Kenya tegay waa garanayaan hawshaas oo kale Kenya waxay soo jirtay dadku contraband iyo waxbay ka beec mushtari jireen dadkii tegay baa garanaya. waxa la yiraahdo yumba kumi Soomaaliga ilma yar yar baa maanta dhanbanooniga hortaada ku dheelahaya. Soomaalidu contraband waa iska taqaan weligeed faanti maroodi markii la soo baxsho ilmihii baan toos ka cararay dawladii u sheegayaan isla markii baad arkaysaa askartii kula joogta lacag contraband waa laga qaaday. haddii la helo ciidamo madani ah oo xaafad walba dareensiisa nabadgelyada inay ku jirto laba madaxana loo sameeyo raboorkana la siiyo ninkii ku soo saaidana sheeg la yiraahdo iyo qoyska caaw ku soo hoyda يعني وحوين بكقبانيسا dadka hadda qaxootiga oo kale meesha la isugu keenay oo tirada badan leh laftirkooda waa lagu soo dhexdhuman karaa laakiin indhaha dadka waxa tusi kara dadku waa masaakiin way maxay sameyn karaan hubkii waa la soo dhex gashan karaa dadkii waa in darasayn la sameeyaa darasayntu wax weyn bay ka bedelaysaa runtii dalka waayahay su-aasha ugu dambaysa waxaan siinayaa Nadiifa oo la shaqeynaysay hay-adda kahortaga masiibada ama masiibooyinka qaybta barakacyaalka dad badan oo waxaa jira ay abaaruhu soo qixiyeen oo degan Muqdisho qaarkood waxay degan yihiin meel bilicdii magaalada Muqdisho ah qaarkood ma awoodaan inay meel kala tagaan marka dadka la shaqeyso macquul sidee ku tahay inay dadka meel gooniya ay guriyo ay ka huwan karaan ama ay ka geli karaan milicda iyo qabowga ay ka geli karaan in loo dhiso oo gooni ah oo magaalada meel ku haboon hadii aan u soo noqono hada dadka barakacayaasha ee Muqdisho ku soo barakacay waxay ka soo barakaceen horta gobolada dalka oo dhan hadii aan niraano macnaheedu inta gobolada dhexe ilaa maaragtay ilaa Kismaayo ka yimaadeen kuwa marka waxaa jira xorooyin loo sameeyay sida xerada badbaado kale oo loogu talagalay maaragtay dadkaas laga soo raray Xamarweyne iyo in la dejiyo waxa kale oo jiro hadii waa taqaanaa ex control hada dhulkii dawladda lahayd oo jaamacadda ummadda way degan yihiin oo macnaheedu iyagiyaaba degay waxa jira mashaariic oo UN-ku ay ka wadaan oo ay guriyo ugu sameynayaan ilaa macnaheedu soconaya March bish sanadka soo socdo hadii ilaahay ma 2013 ka sameynay ee hal qol u yeelan laakiin asayad ahaan anaga hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka qorshaha noo yaala asay dawlad ahaan waxay tahay dadka inaan lagu dhiirigelin inay barakacsi ahaadaan oo ay maaragtay qof gacantiisii wax ka sugaan yani anaga waxa noo qorshaysan asayad ahaan dadkaas inaan training la siiyo tababar la siiyo مثلا xarqaanka kamida farsamooyinka gacanta ah makaaniga waxyaalo yar yar oo maaragtay training oo wax muddo yarna socon karo wax badan ay ka faa'iideysan karaan dadkii hadii ay maaragtay rabaan in la celiyana markaas mashaariic loo raadiyo lagu celiyo gobolladooda iyo degmooyinkooda hadii ilaahay idmo kuwa raba inay joogaan magaaladana la baro sidii magaaladii looga shaqeysan lahaa ay dad isugu filan ay noqonayaan si dignitigooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda loo ilaaliyo sababta rasuulka kaleey salaam wuxuu yiri gacanta koreysa ayaa waxay ka qeyb badan tahay markasta gacanta hooseysa way أنا ما سنت وسوق وجرينا أنت صار برامج كويس كيسينا أنا ما سنتين لبدين نبى إسبيلا هي نظيفة وتهاي داوديال وحا داون إنسان برامج كي بندقة تي في جو على وإنه كسو قادنا وحيابها حق السياسة دا يجارهان سومالي دا عالم كمل كستو جوجان كسو كردا وإنه كفلقينه سيدا وحا داون إنسان تيتوسا تي في قرنك سوماليات برامج كان يمكو إيجيني دور كحوين كسومالي دو أي كقادن كران dibudhiska amaba isbedelka cusub ee Soomaaliya gaar ahaan waxaynu ku eegaynay taariikhdii soo jireenka ahayd ee Soomaalidu ama aan iraahdo haweenku ay ku lahaayeen waagii doonista xorriyadda iyo qaranka Soomaaliyeed iyo dawladihii hore sida ay haweenku ka qayb galeen sidoo kale doorka ay ku yeelan karaan dawladdan hadda dhismaysa ee lagu wado in qaybtii hoosaadka xafiisyadu ay soo dhismaan waxa barnaamijka ay la qayb qaadanayay Marwo Isabella Hussein Geedi oo iyadoo ah hooyo u dhuundaleesha ama aad kaga warqabta arrimaha Soomaaliya sidoo kale waxay la qayb qaadanaysay Nadiifo Sheekh Umar Tuure
tuure oo iyana ah madaxa maareynta masiibooyinka qaranka qaybta barakacyaalka. barnaamijkan daadaheynaya anigoo ah Cabdirasaaq Socoto waxaan kusoo gabagabeynaynaa intaynu ku kulmayno barnaamijka mid labada waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. soo laabanaya marka sidaad hadalkaada ku dartay meelahaas oo kale oo dawladdu ay joogto oo meelaha ugu muhiimsan loo wardiyaa inay dadka qaarkood wali hub wataan miyaan laga joojin karin miyaan la dhihi karin aagani waa aag ka mamnuuca qoryaha la qaato xaqiiqadii aan qirana ceebteena taas weeye sidee ammaanka loo sugi karaa haddii qof aag shacab qori wato aagii dawladda ay degneed isagoo qori wato waa runta taas waa jirtaa hopefully in aan xalinaan isku day 20 sano kadib markaan ilmihii korinay waxaan isugu imaanay dalkii aad u burbursan annaku qabiil ma lihin gobol ma lihin jabhad ma lihin oo gabadh jabhad leh miyaynu lahayn yaa Soomaali ah yaasa Soomaali noqon kara qof kasta oo ku dhashay gudaha Soomaaliya dhalasho ahaan waa Soomaali maxaa keenay in waqtigan hadda la joogo Ingiriisku faragelin ku soo sameeyay siyaasadda Soomaaliya 19 sano kadib oo dhibaatada ay ka dhacaysay waxaa dhacday caruurtii ay iyaga tarbiyeysteen ee wadankooda ku dhashay wadankan lagu barbaariyay ayaa noqday wixii ay ka cabsanayeen in Soomaaliya laga arko